Madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi ayaa geeriyooday sida ay sheegayaan wakaaladaha wararka iyo TV-ga dowladda dalkaasi Masar. Madaxweynaha ayaa la soo taagay maxkamad ku taalo dalkaasi Masar maanta oo Isniin ah, hase yeeshee markii maxkamadeyntiisu furantay kadib ayuu madaxweynaha miyir daboolmay waana uu geeriyooday sida wararku ay sheegayaan. Shalay oo Axad ahayd ayaa la doonayay madaxweynaha la saaro maxkamad, hase yeeshee dib ayaa loo dhigay, waxaana la sheegay in la sugayo 22 xubnood oo ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiin oo maanta maxkamad la soo taagi lahaa. Ururka Ikhwaanul Muslimiin ayaa ku eedeeyay dowladda dalkaasi Masar inay ka dambeyso geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi, waxayna sheegeen inay dowladdu ka gaabisay la tacaalidda xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi oo maalmihii dambe ka soo dareysay. Sidoo kale, hay'adda u dooda xuquuqda insaanka ee loo yaqaan Human Rights Watch ayaa dusha ka saartay sababta geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar. Dowladda dalkaasi Masar waxayna sheegtay inay dowladda dalkaasi Masar ku fashilantay wax ka qabashada xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi oo maanta geeriyooday ayaa waxa uu dhashay 8 bishii Agoosto sanadkii 1951, waana aabba dhalay 5 carruur ah. Yaraantiisii wuxuu wax ku bartay gudaha dalkaasi Masar, wuxuuna shahaadooyinkiisa bachelorka iyo masterka ka qaatay jaamacadda Qaahira kulliyadeeda injineernimada sanadkii markuu ahaa 1975 ilaa 1978. Xilligaas wixii ka dambeeyay wuxuu u ambabaxay dalka Mareykanka, wuxuuna waxbarashadiisa ka sii watay halkaas, wuxuuna shahaadada PhD-da ka qaatay jaamacadda Southern California sanadkii 1982. Professor Mursi ayaa wuxuu kaaliye macallin ka noqday jaamacadda California State University ee dalkaasi Mareykanka sanadku markuu ahaa 1982 ilaa 1985. Wixii xilligaas ka dambeeyay, madaxweyne Mursi ayaa ku soo laabtay gudaha dalka Masar, wuxuuna ku biiray ururadii siyaasadda ee ka soo horjeeday dowladdii xilligaasi talada haysay. Sanadku markuu ahaa 2000 ilaa 2005 ayuu wuxuu u tartamay xildhibaannimo. 2012 waxaa loo doortay madaxweynaha dalkaasi, hase yeeshee sanad kadib ayaa waxaa si afgembiya talada dalkaasi uga faramaroojiyay militarigii dowladdii Masar ee xilligaasi uu hogaaminayay madaxweynaha haatan talada hayo ee Cabdifataax al-Siisi. Madaxweyne Mursi ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyay ee si xor ah loo soo doortay, wuxuuna ku geeriyooday da'da 67 jir.